kaliya ma ahan in lagu dilo xoolahaagana la qaato in aad ka cabsooto marka aad joogto Afrika iyo wadamada muslimiinta ah sida aynu baraha bulshada ku aragno balse maxaad ka ogtahay sheekada laga qariyay ee ah magaalada ugu halista badan gudaha Mareykanka iyo caalamka intiisa kale magaalo dadka ku nool intooda badan la dhacay magaalo marka aad sii galayso lagu sheegayo in ay tahay mid halis ah magaalada ugu halista badan ee Detroit arrinta kale ee la yaabka leh ee aan ku sheegayo ayaa ah in magaaladan mar ay ahayd magaalada ugu horumarka badan Mareykanka magaalo dadku ay u soo shaqo jireen sanadii 1950kii magaalada Detroit waxa ku noolaa dad lagu qiyaaso 4.5 milyan balse maanta ay ku nool yihiin wax ka yar 700,000 waxa ay ahayd magaalo ku caan ah wax soo saarka iyo warshadaha waxa xarumo ku lahaa shirkadaha ugu waaweyn ee wax soo saara heer ay gaartay in alaabta magaaladaas lagu sameeyo lagu qoro made in Detroit halkii lagu qori lahaa wadanka ay ku taalo waxa ay lahayd magacyo badan oo wacan sida motor Detroit magaalada motorada halka maanta wax walba ay isku bedeleen dhanka kale waxa wali ka sii muuqda sariixi dheerdheera iyo guriyada qurxoona ee waqtigaas magaalada laga dhisay balse hadeer waa kuwa ibar ah oo aan lagu nooleyn maanta waxa ay maraysaa in la waayo biliis ka shaqeeya magaalada tani oo sahlaysa in wadada dhexdeeda lagu baarto waliba maalin cad kuwa dadka dhaca iyaga ma ahan dad dhuunta oo waxa ay fadhiyaan wadada geeskeeda waxa aadna nasiib leedahay hadii kaliya ay ka qaataan wixii aad sidatay oo aysan ku dilin kaliya sanadii 2020kii waxa ka dhacay magaaladan 14,000 oo dambiyadan ayaana iskugu jiro dhac kufsi dil iyo ficilo kale oo aad u xun haddaba magaaladii hormaraysay dadka 5 milyan ku dhow ay ku noolaayeen maxaa sidaan u galay dib u dhacay burburka dhabta ah ee magaaladan ayaa soo bilowday sanadii 1967 kadib markii biliiska magaalada ay isku dayeen in ay soo xiraan dhalinyaro baar sharci darro ah ku jirtay intii biliisku ay ku jireen soo xirxiridda dadkaas ayaa nin ka mid ahaa dadkii oo lagu magacaabi jiray William Scott Tree wax uu bilaabay in uu la dagaalo biliiska wax uuna ku tuuray dhalo qamri ah oo meesha taalay balse dadkii kale ayaa iyaguna bilaabay in ay iska caabiyaan biliiska waxaana meeshii ka dhashay dibadbaxyo waaweyn ayna biliiskii wax ka qaban waayeen dadkii banaanbaxayay waxa ay jabsadeen dukaamadii sidoo kale waxa dibadbaxyadaas ku dhintay maalintaas ku dhawaad 40 qof wixii intaas ka dambeeyay dadkii magaalada deganaa iyo sidoo kale ganacsatadii waxa soo food saartay cabsi wax ayna bilaabeen in magaaladii ay ka qaxaan dilalka dhaca iyo dibadbaxyaduna waxa ay ahaayeen kuwa sii xoogeysanayay maalinba maalinta ka dambeysay ilaa magaaladii ay noqotay magaalo cid walba ay ka cabsooto hoyna u noqoto kuwa wax dhaca haday doonaan wax dila magaaladan Detroit maantay waa magaalo ay ku nool yihiin dadka loo yaqaan gaangiska waana dadka inta badan wax dhaca muuqaalkeenna maanta intaas ay ku egyahay balse saaxiib waxaan ku xasuusinayaa in aad muuqaalkan like saarto haddii aad nagu cusub tahay aad nagu sabiirto adigoo taabanaya subscribe ama follow